wasiirka cusub ee arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa waxa uu gaaray magaalada Muqdisho halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyay. Fafaahinta warkan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Cabdirasaaq Cumar Maxamuud. wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya oo maalinkii shalay ahaa xilka loo magacaabay ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho waxaana soo dhaweeyay xubno isugu jiray mas'uuliyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dalka oo uu kamid yahay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi, wasiirada warfaafinta, boostada iyo isgaarsiinta, wasiiru dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha, gudoomiyaha gobolka Banaadir, xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka, saraakiil ciidan oo uu kamid yahay Generaal Yuusuf Siyaad Indhacada, siyaasiyiin, odayaasha dhaqanka iyo dadweyne kale. gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa ugu horeyn soo dhaweeyay wasiirka. salaakadu xamaanta sharaf weyn inoo ah inaan airportka nacadi inta airport ku soo dhaweeyno wasiirka magacaaban Wasiir Cabdi Maxamed Safiye oo maanta dalka yimid ma soo dhaweeyno walaalna soo dhawo aan ilaahay idinkiisa waxaan u jeednaa hawsha oo loo iman ilaahay u fududeeyo annaguna insha Allah taala garabkiisa istaagi doonaa ilaahay idinkiisa insha Allah maadaama ay maanta maalin jimcaha hayna dalka dib u soo laabtay waxaan maanta insha Allah u rajeynaa khayr xalana soo dhawo wasiir soo dhawo. dhanka kale Ugaas Cabdi Daahir ayaa waxa uu ka hadlay xafladda soo dhaweynta wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya. gudoomiyaha gobolka salaadiinta ganacsatada iyo qaybaha bulshada iyo saxaafadda dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib waxaa farxad noo ah inaan ka qayb galno soo dhaweynta wasiirka loo magacaabay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta oo aan leenahay runtii soo dhawow inta kasoo qayb gashana waa ku mahadsan yihiin. waxaan isleenahay howlaha iyo barnaamijyada ku saabsan wasiirka dib ayaa maaragtay iyo waqtiyada munaasabka ah waxaa laga hadli doonaa. maanta waa soo dhaweyn. gabagabadii wasiirka ayaa hadal jeedinta qaatay waxaana uu sheegay in uu dareemayo culays weyn oo ah xilka loo dhiibay waxaana uu rajeeyay inuu si wanaagsan u guto waajibka la saaray. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa wareegto uu soo saaray 4 bishan oo shalay ku beegneed waxa uu ku sheegay inuu bedelay 3 kamid ah golahiisa wasiirada isagoona 3 kale ku bedelay taasi oo wareegtada lagu faray wasiirada cusub inay xilalkooda si degdeg ah kula wareegaan. ka codsanaynaa oo gaar ahaan anagu idinka codsanayaa مسؤوليتداس gudashadeeda wixii dadaalahood kartaan in ay ugu kabtaan insha Allah. aad iyo aad walaalayaal u mahadsantihiin. runtii waa culays badan aan dareemayaa oo waxaan isleeyahay intaan wadada hoos isugu timid inay soo dhawow ku tiraahdo mas'uuliyadeeda Ilaahay kuma gefsiyo marka aad iyo aad u mahadsantihiin. waxaan isku ognahay inaan wax wada qabanno isugu tagno wixii danaho dalku leeyahay insha Allah. aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaah. Cabdirasaaq Cumar Maxamuud, Somali Cable TV, Muqdisho.